waxay inoo maraysay waxaan balmiyay saaxiibadeedii gacliyahayga Agshay si aan isku baro labadooda markaasna maxaa dhacay tobanka kanna waxay taageero buuxda u ahayd Agshay markaa bay saaxiibadeeda farxad darteed la ilmeysay kadib sheeko iyo kaftan waxaa dhaweeyay saaxiibadeeda iyo gacliyahayga Agshay markaa way israaceen labadooda anagoo aad isku faraxsan marnaba niyadeedu kuma soo dhicin saaxiibadaada ayaa ka shitaari doonto midka jecleed waxaa la gaaray habeen waxa ay soo wacday saaxiibadeeda ayadoo leh saaxiib waxaan rabaa inaan ku biiro shirkadda booluudka maadaama aad tahay saaxiibadeeda qaaliga ah garab ma kaa heli kara waxaan ku yiri haa saaxiib markaaba waxaan u sheegay gacliyahayga in saaxiibadeeda ay rabto in shirkadda booluudka ay ku soo biirto isaguna aad ayuu u soo dhaweeyay kadib saaxiibadeeda waxay bilowday inay ka mid noqoto shaqaalaha ka howlgala booluudka maalin badan kadib waxaa khilaafna soo dhaxgalay anigay gacliyahayga Agshay markaa Agshay wuxuu iga codsaday inaan ammaan siiyo waa naxay waxaan sameeyo ayaan garan waayay waxaan wacay saaxiibadeeda anigoo iheyso murugo walwal markaaba waxaan u sheegay wixii dhacay waxay ugu tiri saaxiib istaji aniga ayaa la soo hadlayo waxay ugu tagtay gurigiisa intay ku maqneed saaxiibadeena xaliska labadeena waxaan dareemay naxtin anigoo isla miyuu ku diidi doona baa waxa soo wacday saaxiibadeeda ayadoo leh saaxiib waan ku guuleystay markaa bay igu tiri galabtu wuxuu nagu sugayaa gurigiisa kadib waan isa soo raacnay anigii saaxiibadeeda markayna dhexdhexaadisay baa Agshay igu yiri abaayo wax kastoo inaa kula wadaago ayaa igu ogtahay ee tixdan macaan iga hor kafkan guu geystay karaali noqo macaani imaanshaha galka ceelka ma nuqsaamo weligii soojkaaga inaan noqdo maankayga ku jirtaa ma hilmaami karo jaceelkaaga miisu soo dhawaanaa mirta ma wada goosanaa macaantiisa aan dhadhaminay markuu tixdan ii tiriyey farxad ayaa la ilmeeyay markaas baa waxaan ku iri horay waan ku jeclaa haddana waan ku jeclaa macaane maalintaasi farxadda aan dareemo weligayga ma dareemin kadib waxaan isa soo raacnay anigii saaxiibadeeda waxaa imid gurigayga markaas maalmo badan waxaa isoo gaaray in saaxiibadeedii Agshay ay wax ka dhaxeeyaan markaan adkaysa waayay baa weydiiyey saaxiibadeeda ayada waxay ugu tiri saaxiib shilbaama macquul bay kula tahay inaa wiil isjeceshiin aan kaa bloogo ama aan kaa dulqaado ma og tahay inay saaxiibtinimo ay ka weyn tahay haddii aan rabo Agshay ugu kulama heshiisii lahayn markaas baa saaxiibadeeda ka codsaday inaan iga raali ahaato waxay ugu tiri saaxiib waa caadi shaki wuu jira qofaan wax ogeyn ha cadaabin bay Soomaalidu tiri kadib hadalladaasi markay igu tiri saaxiibadeeda waxaa iga baxay wax walbo shaki igu jiray ee igu dhaliyeen dadkii aan isla shaqayn jirnay si kastaba markay sidaa ku socotay baa maalin waxaa soo aaday guriga saaxiibadeeda waxaan ku dhex arkay saaxiibadeeda iyo Agshay isla fadhiyaan markaas wax iguma dhalan waxaan isdhahay arrimo caadi ayay ka sheekaysanayaan xiriirka aniga Agshay ma ahayn mid nusqaamay muddo markay sidaa ahayd baa jaceelkeena ka muuqday mid sii laciifaya aad baan ugu xumaaday aniga mar walba oo Agshay la kulmo waxaan arkaa labadooda isla fadhiyaan markaaba waxaa laga sheegay in labadooda uu u soo baxay mashruuc filim oo ay ku wada sharatameen labadooda haddii ay guuleysato saaxiibadeeda tobanka mashruuca filimkeeda ay Agshay la sameyn doonto xiriir jacayl midka Agshay hadduu guuleystana uu guursan doono saaxiibadeeda tobanka waxayna ka fariisan doontaa shirkadda booluudka markaaba waxaa guuleystay mashruuca Agshay waxaan u tagay gurigiisa si aan u dareensiiyo jaceelkaan u hayo waxaan ku iri qiiradaada weelnimo qusulkaaga wanaagsan baa qulubteeda qaboojiyay qushuuca qalbigayga inaa igu qamaartantaan qiimo aan ii yeelin waa in aan ka qoomameeyaa please qaybteeda ha iga qadin waa laga fiican yahay inaad tiraahdo tobanka ayaa ka fiican shilba maxaa igu qiyaanaysaa oo sidaan ii gelaysa ma og tahay in dartaa aan isku dili karo waxaan ka soo degay gurigiisa anigoo aad uga xun kadib waxaa dhacay guurkii lagu sharatamay runtii indhahayga ayaa ilin durbaba ka soo daadatay wax miir ah ma aanan lahayn aniga waxaan noqday maqana jooge kadib ayaa waxaa hadal nuxuusa afkayga ka soo burqaday haddii aan calfan waayo Agshay hay calfato saaxiibadeeda inkastoo i qiyaantay dumaashinimadan ku baray dibin saaxiib miyuu ahaa ayay tiri shilba xaqiiqdii dhibaatadii igu habsatay waa midaas oo ii geysatay saaxiibadeeda qisadan waxaa ka baranaysaa in saaxiibadaada ama saaxiibkaaga aysan ilbiriqsi ku qaadanaynin inay dhabarka kaa togtaan
waad ku mahadsan tahay daawashadaada. haddii aad ku cusub tahay channel subscribe garee, sidoo kale furo gambaleelka si aad u hesho muuqaalo aad u xiiso badan. la wadaag saaxiibadaada. हर दिल जो प्यार करेगा